السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنا الكيني مع مشرف وإذا له سودوا هذا أصحابتي دقالقة وإذا السلامي ملك استودنوز ذا فيذك جوكتين waxaan isku salaamta islaamka walaalahayga qaaliga ah maanta waxa idin haya qiso cajiib badan qisadaas oo ku dhacday gabar walaasheena waxa rabaa inaan ila wadaagtiin qisadaas waxa dhacday asxaabteeda qaaliga ah gabadhi maalmaha kamid ah in ayadoo joogto wadanka Nairobi ay degnaayeen gabadhaan iyo odageeda bis waxa dhacday asxaabteeda in wiilka shaqadiisii Nairobi ay ahayd asagoo meesha shaqada joogo waxaa la yiraahday maanta Soomaaliya lagu bedelay wadanka Soomaaliya ka shaqo galaysaa hal hada qof markuu shaqaale yahayni meeshii markaas loo diro buu aadaa marka madax adeeg karo sama wuxuu walaalay Soomaaliya shaqada la diray xagaasi Soomaaliya shaqadu aadaya walaashay maxaan suubiyaa oo aan sameeyaa hal moodo gurna hal mar gabadhi waxay tiri marka walaalkay wax dhiba ma lahan iska bax hal bilan ka dambeynayna hal bil kadib waa ka daba iimaanayna anaga waa soo guureena marka adiga maadaama shaqada kiis ee taa hadda ilaa soo baxay iska sii bax adiga saxabtii waxa dhacday inuu wiilku soo baxay asagii markuu soo baxay wuxuu shaqo ka helay elboorka oo aadan cadde elboor oo Soomaaliya wuxuu shaqo ka helay shaqadiisii meeshaas laga dhigay oo xagga laga soo bedelay Jomo Kenyatta oo ka shaqay jiray aadan cadda loo soo bedelay asxaabteeda bis gabadhi uu ka soo tagay waxa dhacday asxaabteeda qaaliga ah gabadhi bil kadib waxeedii iyo alaabiyadii soo xirxiratay bil kadib way soo baxday taleefanka iskala hadleen haye maanta diyaaradda ku qoran oo soo baxaya oo gaabitay way weero la shay gabadhi way soo baxday ee laboorka markaan ka soo degtay tiri ani asaga isma arkin tiri wiilkii taleefankiina iga qaban maayo aniga waa iska soo baxay guri walaashayaan soo aaday meeshii aan imaaday guriga walaashayaan ku soo degay waxaan walaashay odageygii waa isla soo hadlaynay ilaa aan soo baxayay waa isla soconay mar alaali markaan laboorka ka soo degtay ayaa noogu war dambeysay meelo jaan ay cirib dhigay war uma hayno haddaan taleefankii aan waco iga qaban maayo bis gabadhii walaasheeda guri dejisay meeshii la dejiyay meeshii iska joogtay ninka 4 caruur ay u dhashay 3 wiil iyo gabar ay u dhashay wallahi markay iga shakad aad ayaan uga xumaaday ilaahay waa ogyahay subhanallah ma ahan in la soo loo galo dadka naagtaada xaaskaaga in ninka oo sidaas u galo wallahi ma ahan naagtan in ninkeeda xumayso ma ahan maadaama meeshaan nin in naag isqaba leeyahay oolad la isku haayo ma aha walaalahayga in la isxumeeyo subhanallah ilaahu shaydaanka naga qab rabbi raxmaan bis waxa dhacday asxaabteedii gabadhii waxay tiri meesh makan degay oo joogay waa waca iga qabo maayo waa waca iga ma qabanayo taleefankiisa bis waxa dhacday biilka oo ii soo diraaben ilaaha caayid biilka ninoo noogu soo dhiibaa asagaas oo mobilkiisa ku soo tuura asaga ii soo tuuro wallahi biilka ma heshata wallahi ima dhaho gabadhi waxay tiri maalmihii ugu horeeyay ilaa 2 bilood stress ay ku dhacay wallahi billahi waxay tiri taas haduu ilaahay iga badbaadiyay alxamdulillah tiri inaan waasho wax yara iga dhinaad sababtoo ninkii aad 4 caruur u dhashay oo wanaag aabba ka fiican wallahi inuu jiro ma u maleynayay tiri ya fiicnaanta oo qabo aabba ka fiicanaad ilmo loo dhalaa maanta wallahi ma qabay tiri gabadha laakiin bishaas aan ismoognahay baa balaayeen badashay maxaa ka taqaanaadi taleefan igama qabanayo saytiin soo dhahay ma dhimane ma noolnahay war nagama hayo anigi stress waa isla hadlay waa isku buuqay waan fakiray ninkii maxaa ku dhacay xusan ku galaya maxaad ka soo bisay laba kelmad oo xun isku ma aanan qaban isaga hadal macaan ma ahani wallahi inaan hadal xun aanan isku qaban tirani isaga subhanallah laakiin wax bedelay wallahi awa alla ma aqaani wax bedelay qabriyan dhiga ilaahayga luqunteedas is suray ba su'aal ay markii qabriga la dhigay wallahi inaan ogeyn tir wuxuu iga maqay
oo aanan warkahayn oo aanan xumaato aan ku kala teginay tiri ya ilaa hadda adiga waxay tiri muddo kadib adiga stress igu dhici tagay dhashoogi tagay maskaxdii xanuuntay sababtoo 4 ciyaal aabba u haysid biilkana ninku ugu soo dhiibahay asna aadan halow aadan isdhehaynin wallaahi qof walbo ya oo dumar ah wuu dareemi kartaa dhibaatadaas xanuunka ay leedahay wallaahi tii ku dhacday iyo taan ku dhicinbo wallaahi way dareemi kartaa subxaan allah walaalahayga waxaa dhacday in ninkii muddo kadib qabasho ma lahan taleefon kama qabto bis waxay soo bisay ilaahay bay iska barisay waxay tiri macallin dugsiga u tago quraan macallin oo isaaraan dhahay aniga stress igu dhici tagay sababtoo fikirka badan waa dhibaato cudurro badanna waa laga helaa alxamdulilah tiri stresski badnaa iyo xanuunkii badnaa dhibaatadii badneed way ahaysaa laakiin sidii aan ahay markaas alxamdulilah hadda waa karoon yidhaahday 4 bilood oo dhalato oo dhamaata aan jooga aanan is arkin isna maqlin codkiisana aanan maqal indhahaygana aan saarin walaalahayga qaaliga subxaan allah bis cidiisa ma garanayo tiri anigu qurbaan isku soo aroosnay ani isaga taleefon baa iska maqalnay cidina mi soo xiriiriso meelan u xiriirshay ma aqaani asagii cidii ugu xiri lahaayne hadda waa kaasa asagii aan balla ahay wallaahi wax aan sumeynin ma lahay tiri marka wallaahi waa dhibaato 4 ciyaala aabba loo haayo haddana wuu juuq iyo jaaqdiisa lahaynin biilka wallaahi waxaa tiri been ilaahaa caaye tiri maanta haddaan dhinto qabriga la dhigo waa lii su-aalahay tiri biilkayga wuu isiiyahay tiri laakiin asaga intoo iisoo tuuro mobilkiisa igama soo tuuray dhaha ma fahan wiil ay asaga isyaqaanaan buu iigu soo tuuraa asagaasaa iisoo tuura ma hesheen biilkii hataa ma idhaho wallaahi wax bedele ma aqaani meel laga galo ma aqaani ani asagoo aad iyo aad isugu fiicneen aabba ka fiican oo ilmo loo dhalaayo wallaahi inuu koonka lasoo dhigo ma u maleynayay tiri sababtoo waa dad isku fiicnaa 4 ciyaalaan u dhalo isku fiicnaa ahayni tiri maalintaas oo asaga soo baxo iga soo hormaray ya halkaas bil aan kala maqneen unbaa dhibaatadaas dareemahay tiri oo aanan asagin isoo wiceyni tiri oo meel oo yacni oo ka raadiyana aanan aqoonin taleefonkiisii oo markaas ku aqaaninay igoosan iga qabanaynin marka walaalahayga qaaliga ma ahan saas in la yeelo in annaga nala xumeeyo ma ahan xaaskaaga ku dhashay 4 ciyaala haddii aad adiga bil-aadan aa tahay haddii aad nacday hataa ilaahay wuxuu baneeyey in la kala tago waa wax ilaahay oo baneeyey ma aha wax anaga aan keensanay haddii adiga qoftan ku anfici weyso adiga xaggaaga akan go-aansatay inaad kala tagtiin si sharaf leh inaad dhahdo walaalay macaanto anigu waa ku furay bisa iga tahay xaq iyo xaquuq waxa igu leedahay waa iga kaas mac salaama waa wax jiro oo ilaahay wadadaas weyn wuxuu u baneeyey in labada qof oo isfahmi weyso ay kala marto laakiin ma ahan in la isxariiriyo 4 bilood oo dhalato dhamaato oo war iyo wacaal aysan ka hayn odageeda oo aan taleefon aysan ka qabanaynin xaraam wallaahi waxaas wax fiican maaha marka ma aha saas in la yeelo xaasaskiina saas in la yeelo ma aha raggeena soomaaliyeedo waxaa waaye dhibaatada waa jirtaa meel walbay ka jirtaa waxaan idka codsanayaa inaad dhibaatada ka dhaaftiin xaasaskiina oo qofka haddaan nacday waa iska furi kartaa oo allah kuu baneeyey laakiin naagtaas gabadhaas hadda mana furno mana qabno ya walaahi wax laga xumaado waa aad iyo aad isaga murugoonaysaa ayada maka aragtid kurbada ka muuqato wallaahi waad yaabaysaa laan adiga waa dareemi kartaa ani waa dareemi karaa qof walba waa dareemi karaa ninkaagii aad u dhashay ciyaalka oo aadan meelaad ka doonta aadan lahayn oo aad taleefonkaa ku taqaan kaa qabanayn oo meelaa u raadisa aadan aqoon wallaahi xanuun waa wallaahi bilaah waa dhibaato aad iyo aad u weyn subxaan allah raggeena soomaaliyeed naga daayay dhibaatada oo xaasaskiina sida u dhaamo oo olaadiina xafita oo naagta haddaan nacday
ilaaha baneeyay in la kala tago ma ahan in lis dhibo ya oo gabadhii maskaxdeeda stress lagu rido hadday waalatay xaashiyaasha aruuriso ayada unbaa waalatay iyo dadkeeday ka waalatay adiga kaama waalan